waxay maalmahanba ciidamadu ku jireen waqtigan oo saacada ay tahay 6 saac oo habeenimo oo wali ay ku jiraan ciidamada howlgalkii iyo shaqadii waxa lagu jiray maalmaha kanba inay ciidamada jooga gobolka bari gaar ahaan ciidanka booliiska BNBF madaxtooyo iyo BSF ay wada shaqeynayeen oo shaqada lagu jiray ee ahayd in magaalada howlgallo badan laga qabanayay oo ay ciidamadu si wada jira ay ugu jireen oo saraakiisha hareeraha fadhida oo ay ugu horeeyaan taliyaha ciidanka BNBF taliyaha ciidanka madaxtooyada taliyaha saldhigga bartamaha iyo rag badan oo hadda shaqada ku jira oo shaqada u maqan inay ku jireen baaritaan iyo guriyaha magaalada inay baaritaan ku wadeen meelo badan laga baarayay kulligoodna ay shaqada si wada jira ugu jireen annaga laftigeedu mararka qaybtooda aan kala qayb qaadanaynay mararna meesha tan aan ka hageynay oo shaqada ugu jiray waxaan bulshada u sheegaynaa biliifyarna ka siinaynaa dhagarqabayaashu waxa ay dadka ku haligayeen inay ciidamadu ka hortageen soo qabteen kuwa qarxiyeen waxa weeye gacan adag ay ku soo qabteen aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantood ciidamada shaqeynaya oo shaqadaas ku wada jiray oo sida wajirka u qabanayay oo dalkooda u shaqeynayay oo xilli kastaba shaqada ugu jira iyadoo la doonayo inaan mar kasta u shaqeyno laakiin waxaan ugu baaqayaa bulshada gobolka bari sida aan sheegayba maalmihii dhaweyto waxa la rabaa ciidamada ammaanka in la shaqeeyo oo si dhow loola shaqeeyo oo loo sheego xogta iyo waxaad arkaysaan waxay ciidamadu ku hawleeyeen inay dadka badbaadiyaan dadka u shaqeeyaan u adeegaan wixii loo igmaday way habeen iyo maalin u taagan yihiin waxaan rabnaa dhammaan inay bulshadu ku baraarugto waxa ciidamadu ka shaqeynayaan inay yihiin inay dadku badbaadaan oo dalka la badbaadiyo oo dhagarqabaha doonaya inuu ummadda dhibo gacanta ku soo dhigaan waxaan ugu mahadcelinayaa xilli kasta iyadoo ay maalin iyo habeenba u taagnaayeen oo ciidankii saaka 6dii shaqada galay ay wali ku jiraan oo shaqada ay hadda xilligaas ay baaritaankii socdo ciidamadii marayaan waxaan ugu mahadcelinayaa inay ajarkoodan heli doonaan shaqadaana inay laabaan ka sugayno iyaguna waxaan kaloo uga digayaa bulshada shacabka baabuurta bacda madow lagu xirayo oo galabtii lagu soo dhijinayo oo habeenkii laga fiiqayo talaabooyinku habboon baa laga qaadaya qofkaas waa la diiwaan gelinayaa qofkii mar laga diro mar labaad talaabo sharciga waafaqsan baa laga qaaday qof walbo gaarigaaga cid iska qarin maysid qof shacab tahay muwaadin baa tahay sidaada u raacay ka dhaa ku ganacsan ka dhaa dukaankaaga ku tag ka dhaa laakiin inay ciidamadu kaaga diiraan jeegbontiyada shaqada kuwa ku jira roondada hadhowna ku soo dhigsato suuragal ma noqonayso waxa inta dheer kuwa hareeraha kaga dhijaan la arki jiray hadda kuwa wajiga kaga dhijinaya la hayaa oo muraadada ku dhijinaya ninkii muraadada hore ku dhigsada oo ciidamadu ay qabtaan waxaan faraynaa toos inay saldhiga u keenaan saldhigada u geeyaan toos inay saldhigada u keenaan ma la aqbali karo kaas wuxuu ku soconayaa meel sharci ka waafaqsanayn oo dhaafsiisan ku soconaya ma aqbali karayno waxaan u taaganaa habeen iyo maalin bulshada u shaqeyno laakiin mid ka dhibaya oo sharwada u shaqeynay noocaas oo kale weey waxaan leenahay in la iskaashado laamaha ammaanka lagu dhawaado loo shaqeeyo baa muhiim marka anagu waxaan u taaganahay habeenkan iyo maalintaasba inaan saa u shaqeyno anagu saa u shaqeynayna inay hadda dhagarqabana soo galo oo waxa weeye oo meel kale ka soo abaaro aqbali maan waxaan u rajeynayaa ciidamadii ku guuleystay shaqooyinka aan soo sheegay oo maanta insha Allah inay abaalmarintooda heli doonaan waajibaadkoona la siin doono aanuna ka rabno inay iyaguna si laba jibaaraaniin oo waqti badan saraakiil xigeen iyo dableyba inay si laba jibaaraan aad baan ugu mahadcelinayaa dhammaantood ciidamada ka shaqeynaya gobolka bari nooca yihiinba inay shaqadooda laba jibaaraan feejignaadaan indhaha furaan dalkooda iyo dadkoodana badbaadiyaan dhagarqabayaashana waxaan sheegayaa wax kastoo soo maleegtaan meesha joogtaan baa inay ku tageynaa mana in ka aqbali doono inaad dadka lugeysaan oo dhagar u dhigtaan in ka aqbali mayno waana ku soo qaban doona hadii alle aad iyo aad u mahadsantiin dhagarqabe bartilmaameed qof kastoo mas'uula bartilmaameed qof uu qofka jecel yahay ma jiro hadduu isin yahay
hadduu sarkaal yahay hadduu guddoomiye yahay iyo hadduu ciidan yahay wuxuu og yahay qofka ummadda u shaqaynaya inuu dhibo marka taasna waxaan kuu sheegayaa inay meesha rabaan u socdaan laakiin ma gaarayaan ciidamada jeegboonti walba taagan iyagoo aan soo gaarin meelay u socdeen mas-uuliyiintii baa lagu qabto qaraxiina waa la qarxiyey waad aragtaan marka aad u mahadsantahay